هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان مدة الصوماليات ميل كستو جوجتان halka adiga daawanaysan waa channelkaygii Sawaaxili official aniguna waa Sawaaxili waa 13 saddexaad 2021 maanta way taariikhdu tahay 13 bisha saddexaad waxaynu ka hadlaynaa arintii badda Soomaaliya iyo Kenya ayaynu ka hadlaynaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhowr qof aaminka oo soo galay share gareeyo walaalayaal maanta waxaan ka hadlayaa arintii badda ayaan ka hadlayaa GPS kii baan ku dhalaalinaynaa si wanaagsan u share gareeyo insha Allah maanta waxaan soo helay ama soo ogaaday halka ay sartu ka quruntay waxaan isticmaalay maanta mapkaygii yaraa Google Mapkii baan istaaray waxay soo baxday badda inta aynu nagu leenahay in ay ka badan tahay inta aynu maalin kasta ku aragno meesha sida ugu jira waxaan soo qaadanayaa waraaqahaygii baan sitaa oo ujeedaa waraaqahaygii baan sitaa maanta oo lasoo soo qalab qaatay maxkamaddii wax bilaabanaysaa beri mooyaane saa dambe beri toban baynu waqti haysanaa anigu waxaan la hadlayaa dadka bulshooyinta shicibkaa baan la hadlayaa ميهنين بدو وحل سارن ميهنين أقول له ميهنين متعلمة وحنا هينين اسكت دالي يون مركا وين دالي يون عبد الرزاق فارح هوك السلام يا ولال وروليمه وين ورينا سور رجال عليه روك عداك سور رجال عليه واربعة غير شهر قرأت الله أيوة الله أباك شهر قرأت عبد الرزاق وبدي بانك هذا يا ما بكي بان دين هيا إمي كانوا وصودك يا سقوا صور رام صودك يا مرهنا وصودك كوا عصبات ضمنا وصودك يا نما يرتو واحد يشجع حدود على ينوش شجع معلك استلا هذا حدود الراس كامبوني إلى راس العسير حدود الراس كامبوني معها حدود واحد مرتعمل راس كامبوني كش شيساء أو قلبيت كحكتاء أو كونفرنا كسياء والله يرهدو هدي ما الله يرهدو هدي بين مرتع حدود هذه مرتبطة هالك عسكك الشاع واحد يشجع ضد كلمات جغرافية برتي ضد كماب كيجول كقرنا يجي بيس كضد كبدمرنا ضد كجامعة دكتور جغرافية وحد دكتور waxaad samaysaan lambar baan idin qorayaa lambarkaasaad gelinaysaan qof walba Google Mapkaad gelinaysaa ama GPS haddaad haysatid jihaas GPS waad gelinaysaa waxa kuu soo baxaya badda Soomaaliya xuduud meesha tahay waa xuduud anigu geliyay maaha waa xuduud officialka ah metel Googleha wax laga baaro official maaha anigu Googleha intaan wax qoro waan gelin karaa Googleha waxaan Facebookayga geliyay aakhirka Googleha ay tagayaan haddii laga baaro Googleha waa laga helayaa waxaan anigu Facebookayga geliyay waxaan dad meel kale website kale geliyeen Googleha un bay tagayaan marka Googlehu walaalayaal official maaha wax rasmi ah maxkamad la tagayana maaha waxa ay ku jira Google-ka laakiin mapka waxa ku jira satellite-ka online-ka ah ee 1 minute shaqeynaya iminka waxaad ka dalbato satellite ahaan kugu soo sawiraya ku tusaya ay route-ka ayaa horta rasmi ah marka waxaan idin sheegay iminka lambarka waad qoranaysaan qofkii warqadii qalan haystaan uu qoranaya qofkii GPS haystaana uu gelinayaa qofkii mobilkiisa Google Map uu ku jiraana uu gelinayaa ka bacdina bartamaheeda meesha ay xuduudu inoo tahay ayaa ku soo baxsa waxaan anu qorana ma wax satellite-ka aad ka baaranaysid waxaad qorataan hadaba waxaad qorataan minus point 36 waad qorteen baan maleynayaa ka bacdi waxaad qoraysaan 71 waa minus point halkaasi waa hal dhibic weeyaa soo maaha 36 iyo 71 baad ku daraysaa 36 iyo 71 ka bacdi waxaad raacanaysaa hakad wala socota ayaa qoray horta waan ku salaamayaa Cawl Axmed oo ku salaamayna adeer waa sheer gareeya qadar guure on salaamaya noo sheer gareeya lambarkana qortaan idin yeedhinayo lambarka qorta aan idin yeedhinayo qorta lambarka waxaad qorataan waxaan ku yiri marka hore minus baad qoraysaan calaamadda ka jarta ka bacdi waxaad qoraysaan 1 dhibic baad raacinaysaan 36 baad qoraysaan 71 baad qoraysaan deeto hakad baad qoraysaan ka bacdi waxaad qoraysaan 41 25 iyo 9 iyo 25 iyo 2 waa laba lambar marka ayana iskaga khaldan inuu isdaba yaala labada lambar ka horeeya wuxuu ka bilaabmaa 1.36 71 ama hal dhibic 3 lixaad
71 waa lambarka hore kabacdi hakad baa dhex gelinaysaa lambarka dambena wuxuu ka bilaabmaa 41 2 5 9 2 5 iyo 2 intaa markaad qorateen geliya GPS-ka waxaa idiin soo baxaysa badda halka in xuduudda ka leenahay markaa idiin soo baxdo halkaasi waxa weeyaan halkii Kenya ay nagu haysatay iyo intii aynu inagu ka murmeynay lahayn anagu ma halkan malihiin halkan baanu leenahay halkan malihiin halkan baanu leenahay ay BBC maalin walba soo sawirto iyo idaacada aynaan lahayn oo ina majar habaabinaya iyo halkay iyagu labada xariiqood wada aragteen oo sidaa u kala jeeda oo Kenya leedahay tan baan leeyahay inaguna tan baan leenahay marka la iskala tago ay runta timaado labada xariiqoodba meel ka shishaysta oo intii lagu murmayay laba laabkeed leeg ayaynu inagu leenahay intii lagu murmayay laba laabkeed oo kale oo ka shisheeya ayaynu leenahay oo Google Mapka uu inoo aqoonsan yahay Google Mapka Mareykan baa leh cidna waxba kama xado tuuladii aad ku dhalatay adigu imika hadaad geliso wuu ka badiyaa wadooyinka magaalada aad ku dhalatay dhex mara kuwa aadan ku ogeyn buu ku soo saaraya imika wadooyin aadan garanayno gurigiina dabadiisa hortiisa mara haddaad baadho iminka markaa tirado wadadan u sheegaya halkay ku taala wuu run bay noqonaysaa wal qof walba iminka tuuladaad ku dhalatay magaceedii geli Google Map waxa ku soo baxaysa tuuladii inta jid ka baxa magaalada ugu dhow halka loo maro hal masaajidku halku kaga yaalo buu ku sheegaya beerta yar ee xadiiqada lagu nasto buu ku sheegaya cusbitaalka uu ku sheegay meesha kaga yaalo marka ninkan waa satellite Google Map baa la yiraahdaa waa satellite 24 hour oo route map online kasta iyo border kasta uu xisaabsan yahay laamiyada jidcadayaasha meel aanu xisaabsanayn ma jirto bahalkan marka Google Map markaad ka baadho lambarkeeni ahaa 1.3671 hakad 4125 iyo 2 waxa ku soo baxaysa badda intaynu ku murmayno ee inagu aan inta maan leenahay iyo halkan ay nagu haystaan halka isku inagu haystaan iyaga iska badaa waa indhabeel ee halkaynu inagu sheeganayno laba laabkeed baynu ka sii shisheynaa xuduudeeni caalamku inoo aqoonsan yahay inagaaba indhala taa mid ma tahay taa waad garata okay lambar kale waxaan idin hayaa isagana GPS-ka la geliyo oo northern east oo isagana aan idin hayo digriya laakiin hadda waxaan idin sheegay kii aad mobilka ka baadhiseen waxaan hadaba idin sheegayaa oo kale maadeerayaal qodobka la yiraahdo Kenya badan halka ay ku murmayso ee calaamadan sida ay noo soo gelinayso maxay uga jeedaa halkay ka tixraacaysaa ilaa Soomaaliya waxa leedahay xuduudeedu halkay bariga ka marto badda ka leeyahay iyaduna waxay leedahay ma halkan baynu xuduud ka dhiganana iskama timaato adduunka wax jira wax la yiraahdo reference ama tixraac halkaad iga soo raacday maxaa tilmaansanaysaa maxaa ku calaamada maxaa daliishanaysaa dadkiina tahay waxay daliishanaysaa hadaba maanta faa'iidooyin waaweyn baan idin hayaa waxaan idin hayaa haddii maxkamadda la isla tago oo ay tiraahdo badda intan baan leeyahay inaguna niraadno ma lahin intan baan leenahay inaan inagu calaamadda yara iyadu buluuga marisay ee disputed area ama meel ugu muransan ay ku qortay aynan kula murmayno oranayo intan buluuga ay calaamadaha la mariyay annagaa wada leh iyaduna ay leedahay anaa wada leh sheekadu saa maaha annagu waxaan leenahay xadka iyagii hana loo baadho xadkeeni haddii la baadhana wuxuu noqonayaa halka ay sheeganayso 3,000 oo jeer meel ka shisheeysa ayay noqonaysaa labadan calaamadood kala jeeda labadaba Kenya soo gelisay internetka oo tiri midna Soomaaliya sheeganaysa midna anaa sheeganayna kala saara waana beenteed inagu waxba ma sheegana meeshani meelba inoo tahay oo Ilaahay ku ogaayo lagu yaqaan meeshanina wax soo sawiray ilaa aan maanta ka hortoo ma arkin anigu baa doondoonay waan soo helay waxaan markaa idin sheegayaa Soomaaliya waa isla garanay waxay ku doodaysaa xuduudda bariga ka timaada halkay badda ka gasho ayaa leeyahay oo sidee u leedahay caalamka oo dhan baa sidaa u leh caalamka oo dhan ayaa sidaa u leh bad lama xadeeyo bari baa la xadeeyaa badda meeshu ka galana lama leexleexiyo oo lagu arooriyaa Soomaaliya isku dacwoonaysa Kenya hadaba wax tiri halkan sokaan anigu lan leh see ku yeelata maxay u daliishatay anigu xadka ma soo daliishaday waxa ay soo daliishatay wax ay qarinayso oo aanay afkeeda soo marin karayn ayay soo daliishatay waxaadna ku ogaanaysaan markaan lambarkaan idin siiyay aad gelisaan meesha maabka kor iyo hoos baa u raacaysaan waad zoom garaynaysaan saasaad u ballaarinaysaan
markaad ballaadhisaan waxaad arkaysaan border yar oo borderrada midna waa line midna waa dots waa dhibco sidaasa haddaad aragtid border dhibca ah ama xuduud aan saa line madow ahayna laakiin dhibca waa xuduud lagu muransan yahay adduunka o dhan bay ka jirtaa mawduucaga ayaan ka bixinay xuduudda waxay sidaa u leeyihiin oo tixraaca ay ka wataan soomaaliyadii hore ee weyneyd ee isku taallay ee n f d aan laga goosan intii aan n f d laga goosan ayaa xadku halkaa mari jiray ingiriisku intii aanu inaga jarin n f d oo iyaga ku darin xadku sidanuu afkiisu kenya uga sii jeedo uguma sii jeedine xadka afkiisu wuxuu usoo jeeday xagga soomaaliya markii hore soomaaliya ay weyneyd markaa iyagu laynkii hore ayay soo raaceen waxay leeyihiin badda noogu xisaabiya xuduuddii hore ee n f d intaanaan qaadan ka horreysay badda noogu xisaabiya oo berrigana noogu xisaabiya kii dambe ee isticmaalka oo labada jeerba soomaaliya ha dhacnaato waxay ka dhigan yihiin ninkii tuugga ahaa ee intuu reerka u soo dhacay uu gabadh gurigeeda iska jiifto dahab ka xada dahab fara badan ayuu kala tegi dahab hore oo isagu sitay soo xadiya iyo lahaaya mooyaan oo fara badan oo kanba ka badan ayuu markuu xadaya iyada ayuu meeshan dhigtay oo hadhowna keedii markuu xaday buu ku ilaabay dahabkii reerkan buu dahabkii ka xaday laakiin dahabkii hore u sitay meeshii buu ku ilaabay tuuggii hadduu soo noqdo marka uu berrito miirsado dahabkiisii hore markuu waayo intan yaroo iminka soo xaday mooyaan reerkii muxuu odhanayaa marka walaal asalaamu calaykum dahab maaragteen aan halkan xalay kaga tegay iyaguna maxay odhanayaan adigu dahabka kii naga xaday dahabka xalay intuu noo soo dhacay ma adiga dee maya ma odhan karo oo isagaa dahab weydiistay oo meeshan kaga tegay hadduu haa yidhahdana kii aad qaadatay nasi baa imanaysa bal horta adigu kii horaad qaaday nasi marka waxa weya kenya waa tuuggii dahabka xaday ee dahabkiisii hore meesha ku ilaabay intay berrigay naga goosanayeen markii hore sirmaqabe allowsahana inagoo iska reerbaadi ah ayay waxay meesha kaga tageen baddoodii marka baddu markii hore inagay nagu soo foorartay oo iyagaa bad badan lahaa iminkana dekeda bambaasa mooyaane iyo in yaroo xeebaha ay saxiimaduhu marmaraan mooye oo dee in yaroo wowda lala gaadho mooyaane laynkeenna sidaa u horumara baddoodaba laynkeenna ayaa ka tansaaniya saa ugu dhacaya waayo xuduudda saa ujeedaa marka xuduudduna sida aad moodaysaan iminka laynka laynaga tusay meeshu badda ka galo kama galo waa been laynku markuu badda usii dhow yahay ayuu wuxuu u baydhaa xagga kenya markaasuu isagoo bambaaso sidaa ugu wajahaan buu badda ku dhacaa markuu badda in yar usoo jiro haddii aadan suum garayn markaa ma arkaysid haddii aadan suum garayn meeshuu badda kaga dhaco ma arkaysid waa inaad suum garaysaa markuu badda usii dhow yahay buu xagga kenya u baydhay liidkiisuna kama hadhay liidka borderka hay baddu la galaa oo waa lambarkan aad idiin soo qoray badda dhexdeedu idin geynayaa oo xariiqdiisa marsanta oo bambaaso u muuqata marka kenyana baddeedu aslanba waa bad cawaariya oo cawaarida waxa la yidhahdaa badda aan mulligeedu dheerayn oo doonyuhu ku caariyaan oo ay shafka dhagax ku dhuftaan oo maraakiibtu aanay mari karin markaa meelo layn oo ruudo loogu talagalay oo dekadooda laga galo mooyaane baddooduba waa meel caariyaho aan lahayn meel ay gaadiid waaweyni mari karaan oo aan mulligeedu hoosu dheerayn intii yarada iskuba halhalaynayeenna waa tan laynkeenu saa u goosta marka intayna dowlad la-aan tahayn bay soo fekereen waxay is tidhaahdeen badda u xisaabsada xadkii hore ee greed soomaaliya wixii la ohan jiray soomaaliya markii isku taallay iyo kenya xuduuddeedu halkuu mari jiray u mariya badda halkuu kaga dhacana saa u goosta maba xuma laakiin taas macnaheedu waxa weeye dhulkiinnii naga hooya dhulkiinnii n f d naga hooya baddayadiina noo soo celiya haddaad moodeen kenya inay inaga unina dhacday ee dhul inaga dhacday kenya markay inagana dhacdabay baddana hadda doonayso ka tagta laynka borderkii ay dhulka qaadanaysay ayaana sidaa wax u galay oo karoosay sirmaqabealowsaha laynku markii hore sidan buu usoo jeeday markay dhulka qaadatay berrigana sidaa buu u jeestay may fahamta hadda aad baa umahadsantaa sheer garaa barnaamijka haddii laha yidhahdo youtube baan ka samaynaya sawirada anigu ma aqaani backgroundka sida loo edit garayo
laakiin waxaan u sheegayaa dhammaan youtuberada kabtan ayuub, shiina culay, daahir calasow, gabdhaha badan oo iyaguna soo sameeya backgroundada, suleekha iyo maxaan ku rahday midnimo qaran iyo dadkaas boldheri baan isaga la hadlaya. waxaan la hadlayaa rag fara badan, wax allaale iyo wixii dhalinyaro mucaarad iyo maxaafid ma kala lahaa. maanta waxa weeyaan badeeni maxkamad baynu saarannahay, maxshar iyo miisaan baynu taagannahay, weliba gaala inoo xaakim iyo qaadiya. markaa waxaynana dhacsano, dadkeenana wacyigelino, aynuna isu sheegno, keena maxkamadda jooga iyo keena xafiiska muqdisho jooga iyo keena qurbaa jooga iyo keena tuulada jooga, gebigeenuba iyo kan xuduudda jooga caawa aynu iska wacyigelino. xuduuddeenu meesha tahay, xuduuddeenu waa meesha hadi bay martaa. markay usii dhowda raaskaambooniga xagga kenya u baydhaa. raaskaamboonigu tuulo ku dhex taala soomaaliya bartamaheeda. raaskaambooni haddaba xuduuddu waxay mari jirtay intii aan nfd la qaadan ayay xuduuddu mari jirtay. xuduuddii horena weli gogol maabka way ku jirtaa oo calaamadaysan. markaa haddii aad doonaysaan inaad ogaataan kenya waxa xariiqda xaggaa usoo marisay, waxaad gogol maabka ku qoraysaan kenya north eastern province. kenya north eastern province ayaad ku qoraysaan. kenya north eastern province haddaad ku qortid waxaa kugu soo baxaysa xuduuddii hore sida ay ahayd. haddiiba puntland aad ku qortid raaskaamboni, raaskaamboni haddaad ku qortid ras space k baad qoraysaa am BONI oo raaskaamboni haddaad ku qortid google map waxaa kuu soo baxaysa raaskaamboni, tuulo yaroo meel bacaada ku taalla oo raasi badda sidaa u gashana. kabacdi xadkiibaad baaraysaa oo suum garaynaysaa. markaad suum garaysid xadkii raaskaamboni koonfur galbeed buu ka xigaa, meesha tuulada hadi buu soo maraa. markaad halkaa baadhid kor baad u yar raacaysaa, xagga xuduudda soomaaliya ad u noqonaysaa, xagga kore ayaad u noqonaysaa. xadka liidka madow ee kenya iyo soomaaliya xadka madow udhaxayaad raacaysaa. kabacdi waxaad arkaysaa xad dhibcaa oo madow isaguna oo gogol maabka ku jira oo originaala oo xaggan soomaaliya u socda oo xagga kenya ka yimi oo kenya bartankeeda ka yimi. kaas haddaba kenya bartankeeda kama imanin, waa xadkii hore ee soomaaliya iyo kenya ee hore ee somali great ayaa halkaa mara. kabacdina sidaasuu raaskaamboni ugu dhacaa. xadkan dambe originaalka iminka ee ingiriisku inaga sameeyey ee iminka gogol maabku aqoonsan yahay, raaskaamboni u ka shisheeya. kii horena raaskaamboni buu ahaa, sidaas buu usoo gelayay. markaa baddan meeshay calaamadaysteen sidaasa waa markaa yeelanayaan. markaa iminka maxkamadda ragga inoo jooga laba mid baa looga fadhiyaa, ama dhulkii ama baddii baa looga fadhiyaa. north eastern province haddaad maqashid waa mandheera, waa wajeer, waa gaarisa, waxa weeyaan sielow iyo marsabit oo ilaa mooyaale ah, ilaa mooyaale ilaa sielow oo sida mirooga meesha beeraha jaadka laga soo guro afkeeda ah hay boorantu degto iyo ilaa gaarisa. webigaasaa xuduudi noo ahaa marka hore. webigu markuu badda usii dhow yahay ayay xuduudda xagga soomaaliya usoo beeri jirtay. waa markay dhibicda noqonayso, waa markay raaskaamboni gelayso, waa markay fallaadhay iminka wataan badda ay sidaa u gelayso, waa markay badda tood ballaadhanayso teena soo yaraanayso. haddaba xariiqda maxay u doonayaan baa taallaa. iyagoo intaasoo gobol haysta maxay xariiqda intay dhulkii naceen ay yidhaahdeen baddaa dhaanta oo badda u soo aadeen? waa su-aal aan kaaga jawaabo. waxay u soo aadeen meesha waxa ku jira lakab shidaala oil liar ba ku jira. isagana sawiro kale ayaan ku arkay oo internetka google-ka oo shirkada geliyeen. markaa laayar dhan oo madow oo shidaalaba meesha ku jira. laayarkaa shidaalkaa ku jira haddii ay xataa xariiqda xaggeena soo mariyaan oo dhulkay nooga tanaasulaan oo inaguna aynu idhaahno dhulkayga nasi way xariiqda tii hore noogu celi, shidaalka bartankiisa oo weliba xaggeena shidaalku u badan yahay ayay xariiqdan kenya reebto ay martaa iyadana. oo markaana inagu shidaalka waxba kama waayeyno. xuduuddaa dhex maraysa shidaalkii, qolo walba markaa direction drilling bay u qodanaysaa. direction drilling waa xafar mine, waxa weeyaan shidaalkii halkan ku jira ayaa halkaa laga qodayaa. marka la dhinac marayo ayaa sidaa loogu leexinayaa qodaalka. qalab baa jira ku leexinaya, down hole mad motor alaab sidaasa way leexinaysaa oo signal lagu hagayo. kabacdi aslan bana shidaalka dhakada lagama qoto. meesha ceelku ku jiro dhakadiisa cidna intay saa u istaagto saa toos ma qodato horisantala. waxaan loogu qodanaya shidaalka biir baa ku jirta la yhahda hydrogen sulfide H2S iyo gas ololaya iyo waxyaalo badan oo fara badan oo noocyo kale aan saa usii kala garanayn. marka H2S kaasi hadduu kugu soo boodo waa biir oo dhimanaysaa ama riigaa kugu ololaya. hadday cadceed u taabato hiid yar buu u baahan yahay kugu qarxaya. haddaanu hiid helin xataa kaarboon ahaan buu kuu dilaya. marka lama celin karo haddaad isdul taagtide dhinacaasaa looga soo dalooliyaa
ceel oo dhan sidaas meel dhinaceeda loqday wala dulul shidaal waan ka dhargaynaa hadday halkaas siinona shidaal waan ka soo go'aynaa iyaduna way helaysaa shidaal markaa haddii teenan aynu iminka ku taaganahay xadkeenan bula xaawo mara ee dambe ee xaj isticmaalka ah haddii aynu isticmaalana shidaalna ma helayso badna ma helayso bambaaso dusheedaynu ku baashaalana laakiin dhulkii baa inaga maqnaanaya maadaama aynu maxkamada horteed kaga dacwoonay Kenya xadkeedii waa kan dhulkii ayaa saa ku gubanaya marka inaba walba dhul ma haysane badaynu yaanay naga tegin haddii la yiraahdo dad iyo kalluun la isma dhaafsadee dadka inoo soo celiyana ha qaadatay waayo dadkaa keento laakiin mid inaga ilaaliya Kenya xadka badana ha u isticmaasho kii hore oo Soomaali weyn iyo Kenya u dhaxayay ka berrigana ha u isticmaasho kii isticmaalka labadaas inama wada qabato inaad reeyaa markaas labadaas si aanay noo wada qaban caawa maapka isla shirgaraya Facebooka YouTubeka maapkaas waxaan ahayn caawa sida u wareejiya faa'iidada uu leeyahay hadii la wareejiyo maxay tahay wuxuu gaarayaa kii maxkamadda joogay xeer ilaaliyihii Kenya qudheedii madaxweynihii ra'iisul wasaarihii baarlamaankii ayuu gaarayaa warma garata midnimo darwiish post warwaaq salaamaya waxa soo qortay ma fahmayeen waa shar galasay war libax baa taaniya inaad markaa maapkii waan idin soo sheegay lambarkii GPS-ka aad ku baari lahaydeen Google Map qof walba uu ugu jira halka YouTube ka isticmaasho dhinaceeda waa kuugu jira lambarkii aan kuugu celiyo waxa weeye 1.3671 1.3671 hakad 4125925 iyo 2 waxaad ogaanaysaa halka uu yahay xadka badda Kenya uu ku soo saaray kabacdi waad soo garanaysaa kor iyo hoos baad u raacaysaa wax kala badan baad ogaanaysaa haddii aad doonaysid xadka ay Kenya ku dacwoonaysana waxaad qoraysaa Kenya North Eastern Province waa gobolka waqooyi bari ee Kenya kabacdi maapkiisa oo dhan baa ku soo baxaya kabacdi maapkiisu sidii structure-kiisu yahay baad raacaysaa xariiqda u dambaysa saa u raacaysaa badii buu kula gelayaa kabacdina tii ay ku murmayeen Soomaaliya iyo Kenya ayaad waxaad ka soo saaraysaa Google-ka weyn waxaadna ku qoraysaa Kenya and Somalia disputed area Kenya and Somalia disputed area hadda qortid waxa ku soo baxaysa filimka iyadu meesha gashatay iyo markaad saartid Kenya North Eastern Province waa sax oo waxa weeyaan Kenya North Eastern marka ay ka tanaasusho ayay badda inta leeg yeelanaysaa haddii ay Kenya North Eastern Province doonaysana wax bado ay yeelanaysaa ma jirto inta caruurtu ku dabaalato mooyaane wax kale oo bad ah oo ay Kenya yeelanaysaa markaa ma jiro badda caalamiga ah baan xadkeedu gaari karin meel weyn oo shidaal iyo risq laga baadhaan yeelan karin meel doonyo waaweyn maraan baan yeelan karin inta xeebtaan bay yeelanaysaa wixii xeebtada ka sarreeyana line-ka Soomaaliya saa u dul maraya landheere halka isku geliya Seychelles warbay baantay marka aad baan idin salaamaya inta idinku dhaafin maayo aad iyo aad badu mahadsantihiin waxa ugu weynaan idin weydiinaya waxa weeye inaad share garaysaan iyo dadka sawiradan garanaya sida background-ka loo saaro oo la iskugu edit gareeyo sawiradan oo dhan inay soo baadhaan oo ay soo saartaan oo ay aad u baadhaan oo ay ka bacdina YouTube-ka iyagoo background sameynaya ay soo saaraan aniga YouTube-ka ku subscribe ma gaadhin markuu ku subscribe gaadho ayaan live ka soo geli karaa aan background iyo waxa sameyn karaa mobile projector iyo waxbaa lagu sameeyaa marka anigu waxaas ma haysto mana aqaano fadlan dadka garanaya waxaan u sheegayaa inay isku habayaan sawirada iyo nidaamka iyo warkayga ay iswaafajiyaan lambarka kale ugu dambeeyaan idin sheegaya GPS-ka la gelinaya waxa weeyaan qorta isagana meel ku qorta waxa weeye 1 degree waa 1 oo degree calaamad degree-ga lagu daray 40 afartana hakad sare 20.4 waa lambarka hore wax kastoo GPS-ka laga baarayo laba lambar weeyaan lambarka hore waxa weeyaan 1 degree afartan hakad sare 20.4 laba hakadoo sare markaa raacanaysaa koomaa laba hakad markaad raacsiisid waxaad raacanaysaa markaa S41 degree laba tiri hakad ba xagga sare ka raacanaysaa 34 dhibic markaad qortid waxaad qoraysaa haddana 4 waa 34.4 laba hakadoo koomaa baad raacanaysaa
kabacdina e ayaa ugu dambaysaa waarmay garatay intaa markaa qortid waxaa kuu soo baxaysa iyaduna bartii ay xuduudda badda soomaaliya ku lahayd waarmay garatay waar youtube-ka subscribe noo saarnay axmed cadow sawaaxili baa noogu qorana youtube-ka subscribe noo saara anuu daacad baan iska ahay dee wax walba runta ka sheegayaa youtube-kayga sida aan runta uga sheegayo inaanu kun gaadhin oo aan life laga geli karin ayaan badda iyo nidaamka iyo waxaan ogahay in runta kaga sheegaya maanta inta aan idiin sheegay professor cabdi ismaaciil samatar idinma sheegi karo maxamed xaaji ingiriis idinma sheegi karo ninkii la oran jiray professor doctor xasan sheekh cali idinma sheegi karo waxay un kuu sheegayaan siyaasad qabiil keligatalis wax aan loo jeedin oo wax manfaca lahayn soomaaliya hadduu xasan sheekh cali xukumo iyo haddii farmaajo xukumo iyo haddii uu balaayo xukunto sow isku mid oo soomaaliya mar walba sow soomaaliya un maha soomaaliya mar walba waa teedii waxa xukumaya inaan ku mashquulin soomaaliya iyadii meeda iyadii baa laysku haystaa iyadii baa la baadi doonayaa iyadii baan anugu ka hadlaya aqoonna dee aqoonta maxay taraysaa aqoonta ay yaqaanaan anigu meel ay wax kaga tarayaan ma garanayo aqoonta ay yaqaanaan haddaanay maanta kuu sheegi karin lambarkaan anigu kuu sheegayo haddaanay kuu sheegi karin xuduudda kenya xagga u soo jeedisay referensiga ay u raacday haddaanay kuu sheegi karin maxkamadda garta aynu ku leenahay inay tahay win oo ama badda ama beriga aynu mid leenahay haddaanay waxbaba ku fahansiin karin haddaanay meelaad wax ka baadhato kuu tilmaami karin maxay professor ka yihiin war anigaa idiin dhaamanaya anigu iskuulka waxaan ka bilaabay standard 2 inta imtixaan laga qaaday uulama gelin anuu standard 3na waa dhigtay standard 4 markaan dhameeyeyna macallinkii iskuulka iga eriyey wuxuu iga eriyana carruurta maxaad uga xariifsan tahay wax kale igama erin halkaasaana igu dambeysay dugsi hoose markaan dhameeyey mid dhexena ma gelin mid sarena ma gelin jaamacadna ma arag qararacdayda san iskaga noolaay maskaxdayda yar baa la kaadshada waxaa haddii daacad laga leeyahayna wuxuu ka naafac badan yahay professor tuuga aniga idinka naafac badan sheergaraya inuu xuduudu hadi marto tuulada hadi la yidhahdo waxaad kaloo sheergaraysaan inay halka aynu badda inaga iyo kenya sohodinteennu ay tahay calaamadaasaan idiin sheegay oo 1.36671 coma 41559552 inay intaa tahay oo ay kuu soo baxayso inay waxa ay referensi garaynaysaa ay tahay magaranaysaayay somali great border kenya oo ay saa doonaysa badda ugu soo gasho inuu shidaalka meesha la doonayaa uu ku jiro haddii ay calaamadda kenya loo raaco inuu haddana shidaalkii weli inaga dhaxaynayo intaaba haddaan kuu sheegay war professormaha waxaanay aniga falowgaraya oo youtube-ka subscribe saara oo isla wadaaga barnaamijka oo sheergaraya oo maxkamadda geeya kuwa maxkamadda joogaana maxkamaddii baanu aadnay mooyaane waxba kale lagama hayo iyo nin fiican oo laysku hadlayn karaa noo jooga war gaalo waa tii markii hore baa anaga xadkayga naga goosatay oo halkaa la tagtay oo ina etoobiya ku dartay iminkana tiibaa anigu isku hadlaynaya anu garan maaye nimayoo lambarada qorta oo kuwiina maxkamadda jooga meesha la gala waar yuusuf garaad iyo mahdi guuleed ku sheergaraya waxaan sheegayo hadhayalsanina taariikhda meel ku qorta berigii Israel aniga waa iga jahalsanaayeen anigu anaaba 3 class dhigtay qaaraan mid dhigan baa indhacada isku waday oo ku soo dhacsaday xaqooda iyo calankooda waxa hadii daacad laga yahay adeer cilmi uma baahna caqli bay u baahan tahay laba xiniyood waan salaamayaa sheergaraya barnaamijka hooy mac salaama